ولا waxaan ku nool halkeena shan har hay boqol iyo waxa la keenay imika 58 ba aad soo gaar wali laakiin ma joogto hool weyn oo Soomaaliya isku aragto waxaan rabnaa hararkan laga sameeyay oo korkana hararkii hoostana hararkii gudahana hararkan la fadhiisan xaji madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa ka dib markuu yimid imika halkan wadada uu soo celiyay hadana ka dib wata muddadii yareed maxaan ku raacay xukuumaddu haysatay deegaanka 7 sano ah 6 kamid ah ayaa sidan loogu dhisay hadana waxa loo asteeyay mashruuci dalxiiska la keenay deegaanka Soomaalida oo in ka badan 400 guri meesha laga dhiso oo standard ah oo village oo wixii dadku jeclaan dhan ba laga helay shanta isku xigaba engineer Maxamed Shaale Isaaq baa beeray marka nin walba markuu yimaado geedkiisa uu garanay geed kale harsada ma rabno gudoomiye marka geedahan waxaad ku tala jirtaan baan filayaa inay meeshan kayn isku wada bedesho kayn isku bedesho nin walba geedkiisa uu harsan kara geedkiisa lagama fadhiisan karo caruurtiisa geedkiisa uu keeni madaxweyne ku xigeenka Ibrahim Ismaan caruurtiisa markuu imanayo geedkiisa uu keeni kara engineer Maxamed Shaale sidoo kale wasiiradii hore iyo kuwa hadda jooga nin walba geed buu leeyahay hawlka lagu qadin doono wuxuu noqon hararkan ka dhigno dhaqanka dhaxdiisa weelka wax lagu cunana weelka dhaqanku noqon xeeradii shuuradii subagii wax dibadda laga keenay ma isticmaaleen macal geedku keenay noqono baxar saafki ka iman jiray meelaha ma noqonay geedkeena qudhic iyo galoolkii iyo gosolkii baynu ka dhigaynaa qodobka ugu muhiimsan ee aadka ii soo jiitay waxa weeyaan in waxa weey degmada Shabeelley wax kasta oo laga sameeyo hadda iyo wixii ka dambeeya ay ku dul wareegayso kaliya waa hiddihi iyo dhaqankii Soomaalida hadday noqoto cuntadii hadday noqoto gurihii la geliyay iyo hadday noqoto hoogii la xidhanayay arintaasina waa qodob point kale oo ay aad u dheer yihiin meelaha kale kala duwan waxaanu ku suganahay maamul magaalada Shabeelley oo diyaar garowgii u dambeeyay wada diyaar garowgaas oo markaasi loogu dabaaldegayo waxa weeyaan magacaabista maamul magaalada Shabeelley dhinacayga waxa jooga gudoomiyaha degmada Shabeelley mudane Yuusuf Budliye gudoomiye ku soo dhaw baljiilka maanta ugu horeyn halkan nooga waran marka hore okay aad badan ma san taarta xaruntan waa xaruntan ka maamulno degmada Shabeelley waa gibidi dadka qaarkood wax isaga yaqaan madaxtooyadii qaarna waxa uu yaqaaneen maxaan ku raada Beetmingistiga oo dadkii bariga dhargiga iyo xilli silaasiga soo gaaray marka halkan waa halka laga maamulo waa dhul ilaa maxaan ku raada 150 maxaan ku raada qoodiba ayaa noo deyran oo halkan xafiisyada noogu yeelan badanka xafiiskuna xagan waxa ku yaala xafiiskii biyaha xafiiskii xoolaha xafiiskii maxaan ku raada beeraha xafiiskii cadaaladda xafiisyada buuqa badan leh banaanka ka dhignay lacagta dadku maadaama aad u jecel yihiin زكي وقتنا حاطنا نوصل على صح وهرر دقن هاي دقن كده ما صقرني وهذا كيسه وهرركي هقول لك لو قدين دون وحنا نقول هرركنا كدغنو دقنك دحديس weelka wax lagu cunana weelka dhaqanku noqon xeeradii shuuradii subagii wax dibadda laga keenay ma isticmaaleen macal geedku keenay noqono baxar saafki ka iman jiray meelaha ma noqonay geedkeena qudhic iyo galoolkii iyo gosolkii baynu ka dhigaynaa cabdiqaadir soo yarsaco waxa la moodaa marka la eego urta ka soo baxaysa in fresh yo hadda la sameeyay waxan dumarkii Shabeelley baad u dirtay dumarka Shabeelley baad sameeyay dumarkana keenay iyagan baan u qaybin qabalo walba waxaan ku nool halkeena shan har boqol iyo waxa la keenay imika 58 ba aad soo gaar wali laakiin ma joogto hool weyn oo Soomaaliya isku aragto waxaan rabnaa hararkan laga sameeyay oo korkana hararkii hoostana hararkii gudahana hararkan la fadhiisan halkan lagu qadayaan rabno marka meeshii la galiyay hooygii la galiyay waxa ka sameeyay waa hidiyo dhaqankii wixii la cunayay waa cuntadii dhaqanka waxa weey waxa dadku arkayaan iyo la xidhanayay iyo sooriyaduna waa dhaqankii dhamaan dadka waxaan u sheegaynaa inay soo xidhaan kooyaashii shaalka iyo gabdhuhuna soo xidhaan subiicid ma loo jeedo baash dhaqanka waxa la cunayno wax dhaqanuno geeluna waa keeni xeeradii iyo shuuraduna waa kuweeni wax marka dibad laga keenay iyo China iyo America in lagu cunin baan rabnaa oo halkan lagu cuno wax ka soo bax in kasto bariiska hadda la yeelano ka soo baxay degmada Gacalaba laakiin hadana waxa weey wax dhaqankoodna noqon rabnaa meesha diyaar garowga inta laga u balaaran marka saa loo eego ma la oran karaa Shabeelley waxa weeyaan
dhibaato fara badan oo ay tirsanaysa bay hadda ka soo kabanaysa aad iyo aad Hay. maadaama meeshu markii hore degmanimada degmo loo masixin magaalada Jigjiga la soo raray degmadii Jigjigo oo shab isla ahayd tuliyo harooreysiyo maxaan ku raahdaa iyo shabeeli hal degmo wada ahay marka labada kale waa la ansixiyay laakiin tii Jigjiga inoo taal ee naga dhaxaneed baa la soo raray halkan la keenay marka tii maadaama imika saddex dhashay aad baan u soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay xukuumadana waan uga mahadcelinaynaa si fiican buu yeelay Xaaji Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waana daacad iska miskiin reerihii wax tabanayo dhanba dee hadda dad eegtid markaad eegto shabeelladina kuwii tabanayay ahayd ilaa xaysan la kadib dee reeraha degan meena waxba helinta xukuumadii soo marmaray maxaan ku radaa waxa kamid ah dhul bahanti iyo buuhood la shaxda buuhood iyo maxaan ku radaa mirqan weynaba markaad soo eegtid qoladeena gabooyi iyagana weligood lama xasuusan maxaan ku radaa wax badankood waa wada saa oo meelahan haddaad soo eegtay imika tuliyo garigiya jaarsadii in badan isku loqon banaano waa la kala firfir marka xukuumaddu wax badan bay sameysay oo maxaan ku radaa wallahi dadka marka hore la yareysanaya dad soo kubciso oo wax lagu farxo marka taas aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaa xukuumaddu si fiican bay yeeshay in la sii xoojiyana kuwa badan oo dhiman way jiraan waan ka codsanaa sida shariifta oo kale ilaa cirka ma leh degmo dhulka taalo in la siiyo iyagana ay waxna la yeeshaan waa dad Soomaali walaaliheen aad baan u taageersanaa madaxweynaha waan ku boorinaa arrinta wadadan cusub maxay tahay waa tu macal jayba halka la soo dhigaya laamigii zaki engineer waxaan ugu talagalay halkan dhigno jayga dhigno compactor ku waxayno hada gawarid waa yar qaadatan nasasho maadaama habeenkii shaqeeyo shidaalka gawarida naaftada habeenkii waa u fiican marka halkan waan carro dhigana dadka waxaan rabnaa markay ka soo yar baxaan in halkan iska yar marmaraan meelahan ku leersadaan xaggan sakiyo baraday nagu leex waxa jira halkan guri waxaan ka dhisaynaa guryaha dalxiiska laga sameeyo shub oo aan sidaan aqalka Soomaalida dhaqankii ka sameeyo waan yar canjilina anagu ma sameyn karno kuwa jeenu sameeyeen laakiin wax yar oo hararkiina waan sameynaa isagoo harar laba daryaal guryahan dalxiiska laga sameeyo waa laba daryaal isagoo laba daryaal oo hararkii halkaas ku sameynaa isagoo shubana xaggana ku shubanay waa kala shuban marka waad arkaysaa shaqo ka socota halka marka waa dhisaankii xagga dalxiiska oo kale ayaan rabnaa xafiiska shabeelle in lagu sameeyo kadib dadku marka halka yimaadaan inay soo yar maraan halkan xafiiska marka lagu wareysto muxuu yahay gurigaas shubka meesha uu ku dhex yaala dalxiiska in la fahmo oo kan noqdo turjumaada kan imika waa isagoo shubkii aan sameynayna oo laba daryaalihii oo dhaqanka Soomaalida markan kan sameynana isagoo haddana hararadeenii ayaanu halka ka sameynaa inaga horeysa soo soco hararadana marka halka ka sameyno waxay noqon markaa inuu qofku fahmadee wax inuu dhaqankeennii yahay oo qaar baa iska dhacay dad wax iska dhahayaan wuxuu eegyahayba wax kale wuxuu ma ekay waa dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ee waalidkeen nagu soo barbaariyay ayaan lana halkaas ka sameynaa banaansikiyo dhirtan hadda sanad bay jirtaa waxaan sidan u bax oon beernay xukuumadda dhan ba ka qayb qaadatay ka soo jeeday weyn waxa beeray madaxweynaha dawladda deegaanka Xaaji Mustafa Maxamed Cumar kan waxa beeray Ibrahim Cismaan madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida ka saytuunka wax cambaha waxa beerta ayaan afayeenka baarlamaanka shanta isku xigo injineer Maxamed Shaale Isaaq ayaa beeray kan Xasan Daadhi waa la geedahan dhan wala leeyahay kan Axmed Shukri cambaha Axmed Shukri waa beeray marka mid waliba wuxuu leeyahay laba geed oo kala duwan mid camba ah iyo mid geedahan la harsada ayaa ka beeran xukuumadda dhan baana ka qayb qaadatay gudoomiyaha hore gobolka Faafan hadda wasiirka ganacsiga Cabdixakiin Sheekh Xasan Bakaayis kale Maxamed Aadan Daahir wasiirka xafiiska maxaan ku radaa arrimaha maxaan ku radaa warfaafinta arrimaha bulshada waliba qofulan kaasa beeray kabinigo dhawaa ka qayb qaatay waxaad ii sheegtaa gudoomiye wadooyinkan hadda la sameeyay baabuurtu may mari doonaan ma baabuurta ma sameel gaar ah baabuurta u diyaarsan baabuurta banaankan ka dhigna kan beeskan waxaan ugu dhaxgalin lagu lugeeyo marka banaanka la bari banaanka baabuurka la dhigo leedhashan ku xiri doona birahani waa birihii solarka leerka waxaan ugu talagalay maalinka inaan ku xidhno meeshan xafiiskan u keensanay almost waa 25 xabo biraan diyaarsano leedhash kuwii leerka aan ku shaqeynay solarka weyn gibidan marka rabna habeenka dhalinyarta iska timaado in iska sawir iskaga galgalan iskaga nasto geedahan la iska hoos joogo habeenii maalin meesha dhalaal iska qaato gurigana waa kii lagu nasanayay gasta dhalinyarta hadda deganta marka waa sidaas sax geedu aad bay fara badan yihiin waxaan ku sheegay 7,000 geed baa ku yaal
جيبين كلية دحيسي جيب تضرب كم بان كل أحبارنا نوع كستنا وكياله عم به زيتون كحول هل كان وحفيز كي كان وجست هاوسكي قدومي marka la yiraahdo imika dhinac xararka baad ka diyaarisay dhinac waxaad ka diyaariseen aqalkii la badariyaalaha dhinac waxaad ka diyaariseen xasiidi macal dalxiiska meesha ugu weyn ee dalxiiska waxa weeyaan qaab la badariyaalo u samaysan tahay marka Shabeelle waxay ku wareegaysataa waxa weeyaan dhaqankii iyo hidaha horta meeshuba waxa weeye marka loo xusho dalxiiska waa meel iska dhul kala yar dheer oo soo baxay dalxiiska biyuhuna u dhow yihiin oo dhulka hoostiisa biyaha ku jira jigjigiyada looga jeeday marka wax walba oo la sameeyo wax dhaqanka ku salaysan way hoolka hadda la dhisi doono waa xeeradan laftiisa laga sameeyay design kullu kula wadaagi doona hoolka xafiiska maamulka laga dhisayo si fiican baa loo dhisan garay xeeradii shuurada loo dhisaynkiisa loo dhisan garay hadda kadib marka wax dhaqanka oo xafiisadana markii hore ka leexano sidii caadiga Soomaalida u dhisan laakiin wixii dhaqanka hore ka dibinaan inaan ka dhignaan insha Allah ilaahay ka rajeynaya waxa lagu isticmaalay inuu dhaqan ku noqdaan isla qaadan